السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنا أصحابتك وحيران يوتيوب كنا زيتون كل سودا وهذا أصحابي وحي الناس سعودي عشرة ذي نتحناها مادة الحساب تتوسيق السرة جبت رقيسيها تريجونومتري وحي نكسو قد جرني عوان كينيها دبل أنجلس فورمولا فيديو يكون ريي وحي نكسو هذا اللي دبل أنجلس كوحيين قاعدة الاستعمال أيوه sidoo kale waxaynu ku soo xalinay hal example na waynu ku soo xalinay hadaba videogeena maanta waxaynu ku xalin doonaa qaybihii inoo haray hadaba example 1keena waxa la yiraahday find the double angle of waxa raadisa double angle iska sin 30 cos 60 tan 45 double kooda raad macnaheedu waxa weeyaan sin 30 baad haysataa 60 keeda maxay noqon kartaa كوس لحنا بعد هيستا دبل كيدو محي نقون كدا تان أفرتني يشان بعد هيستا دبل كيدو محي نقون كدا كوني وحي كاساعدي كران سبيشال أنجلسك حق لها اللي يرهدو إيه آد هيستو كود دبل كاينة تراديسو تصانا هانو كالي كوس لحنا أنا قوان قرنايا وإسبيشال أنجلسك لكن كوس بقول يلباتن ما دام أنا محبد السنين وبروسيسك أما هبكي أنقل صوبح لها هذا الفيديو كأنه هو واحد نقصه حلني وين نقصه حلنا سين صدنا وين نقصه حلنا فيديو كأنه ما أنتنا واحد نقصه حلنا دونا كوس لحدا وواحد هو رأسه شيء كوس ودبل كيدو إن أي إنه رادي جنسه صدق ميت كاملة تنكواد وحويان كوس سكوير ولا غير سين سكوير sidoo kale cos oo double waxay inoo la dhigmaysay cos oo double keedu waxay inoo la dhigmaysay oo hore ugu soo sheegnay 1 minus 2 sin square theta qaabka aan ku keenay fiidiyogeeni hore baynu kaga soo sharaxnay haddaba adiga hadii ay tahay markii ugu horeeyay daawade fiidiyowga inaad ku laabato baan kula dardaarmeynaa sidoo kale cos oo double keeda mar kale waxaynu sheegnay inuu la dhiganto 2 cos square theta oo laga jaray 1 hadaba waxaan rabnaa maanta example keenan saddexdaba inaynu ku xalino saddexdaba waxaan rabnaa inay inoo soo baxdo isku darajo waa inay inoo soo baxdo hadaba waxa leenahay solution waxaynu ka bilaabi doonaa tan koowaad oo waxa weeyaan cos 2 theta waxay la macno tahay cos square theta oo laga jaray sin square theta hadaba dhinaca kasta waxaan ku bedelanayaa waxyaalihii aan haystay baan ku bedelanayaa oo waxaan leeyahay cos laba oo lagu dhuftay xagashaydu ay misalaysiiyay 60 baa leeysiiyay xagala waxay la macno tahay cos oo square garaysan 60 laga jaray sin oo square garaysan 60 dhinac kasta waan ku bedeshay kadibna waxaan sameeynayaa 60 markii laba lagu dhufto waa cos 120 degree oo xagala waxay ila dhigantaa cos square garaysan 60 macnaheedu waxay ila dhigantaa halkaas ka ilaali cos 60 oo square garaysan sidaas ila dhigantaa saa ula soo waxa laga yaabaa ardaygu inuu isweydiyo oo isdhaho markasta teeda kale degree-ga yeena hilmaamin waxa laga yaabaa ardaygu inuu isdhaho cos square 60 seeba loo xaliyaa ma cos 60 oo lagu dhufto cos 60 miya macnaheedu si kale ma ahan waa cos 60 oo square garaysan laga jaray sin 60 degree oo square garaysan hadaba cos 120 aniga garamaayo si kale waa u garanaya oo laba kasto 180 isku buuxisa hore waynu ka soo hadalnay laakiin waxaynu ka soo qaadanaa inaynan garanayn marka waxa leeyahay cos 120 ma garanayo waxa ay la dhigantaa cos 60 laftigeeda iyadoo waan garanayaa oo cos 60 macnaheedu markii aan xisaabinayo waxay isleeyihiin sin 30 bay isleeyihiin sin 30 macnaheedu waxa weeyaan half inay ahayd hore baynu soo dhiganay marka waxaan qorayaa 0.5 maadaama cos 60 ay soo 30 ay leegtahay oo 90 isku buuxinayaan oo isku wargareysan laga jaray
sin lixdan laftigeedana hore baynu usoo dhiganay sin lixdan waxay inoola dhigantaa 0.8660 oo iyadoo ah square garaysan. haddaba 0.5 haddii aan square gareeyo macnaheedu waxa ila dhigantaa halkaa la soco 0.5 waxay ka timaaday 5 oo loo qaybiyay 10 maadaama boontiga hal number halka ay ka xigaan oo lagu dhuftay 5 oo loo qaybiyay 10 macnaheedu waa 25 oo loo qaybiyay 100 macnaheedu waa maxay waa 0.25 laga jaray 0.660 haddii aan square gareeyo waxa iga soo baxaysa 0.75 baa iga soo baxaysa. haddii marka labadaasi aan kala jaro haddii aan kala jaro aan dhaho 0.25 waxaad ka jadhaa 0.25 waxa ii soo baxaysa -0.75 halkaasi marka waxa leeyahay cos 120 degree waxa ay la dhigantaa -0.5 calculatorka haddii aad geliso way ku soo baxaysa. si kale oo horena waxaan usoo dhiganay 180 kuwa isku buuxin doona inay isleeg yihiin. tusaale ahaan oo kale hadda 180 laga jaray 120 macnaheedu waa 60 marka cos 60 iyo cos 120 way isleekaanayaan laakiinse waxaad u fiirinaysaa markastana waaxyihii baad u fiirinaysaa. hadda waxaynu soo xisaabinay cos 120 inay inoola dhiganto -0.5 calculatorka haddaad gelisana uu kuu soo saaraya. waxaynu ku xalinay marka equationka koowaad baynu ku xalinay oo ah cos oo double waxay la mid tahay cos square theta oo laga jaray sin square theta. haddana waxaynu ku xalinaynaa equationka labaad oo ah cos oo double waxay la dhigantaa hal oo laga jaray 2 sin theta sin square garaysan theta aynu ku xalino. يعني هاد بعدك بروسيس كعاد قاطو هدي عادن خالدين اسكو جوابه كوسو بحيس هادنا إنكو حلينه بروسيس كلاباد إنكو حلينه وعندهنو مرة كان كوس 2 تيتا وحي إلى ديجانتا 1 minus 2 sin square جريسن تيتا مركا أنا قال لحدا بانا يستا أو حلي هاي كوس لابو لوجو دفتي لحدا حاجة waxay ila dhigantaa hal oo laga jaray laba oo lagu dhuftay sin oo square garaysan 60 macnaheedu waxa weeyaan cos 120 degree xagala waxay ila dhigantaa hal oo laga jaray laba oo lagu dhuftay sin 60 oo square garaysan halka kaliya khaldan sin square 60 macnaheedu waa maxay waa sin 60 oo la square gareeyay weeyaan. marka waxa leeyahay halkaasina waa hal oo laga jaray labo kadibna waxaan raadinayaa sin 60 sin 60na waxa weeyaan waxa ay leegtahay markasta cos 30 bay leegtahay oo 0.8660 oo square garaysan bay la dhigantaa. kadibna haddii aan square gareeyo waxa intaas la dhigantaa hal oo laga jaray laba oo lagu dhuftay inta haddii aan square gareeyo waxa iga soo baxaysa 0.75 haddii aan square gareeyo laba marka aan ku dhuftana waxa iga soo baxaysa hal oo laga jaray 1.5 haddii de hal laga jaray 1.5 na waxa iga soo baxaya -0.5 halkaasna mar kale cos 120 degree waxa ay la mid noqotay -0.5 haddaba process kasta aynu qaadno waxaynu ogaanay inay inoo soo baxayso isku qiimo inay inoo soo baxayso. haddana waxaan isla fiirin doonaa processka saddexaad ee cos oo double ah in ay isku natiijo inoo soo baxdo -0.5 waxaanu haysanaa waxaan leenahay cos oo double ah waxay ila dhigantahay mar saddexaad 2 cos oo square garaysan theta oo laga jaray hal. haddaba dhinac kasta waxaan ku bedelanayaa cos oo lagu dhuftay labo xagash aan haystana waa 60 degree waxa ay la dhigantaa laba oo lagu dhuftay cos square garaysan 60 laga jaray hal. haddaba haddii aan ku dhufto cos
120 degree waxay ila dhigantaa 2 oo lagu dhuftay bracket cos 60 oo square garaysan oo laga jaray 1 iska ilaali cos square 60 macnaheedu waa maxay cos 60 oo la square gareeyay waxay ila dhigantaa intaasi cos 60 waxaan garanayaa inay ila dhiganto 0.5 maadaama say 30 ay isleeyihiin kadibna waxaan leeyahay waa 2 oo lagu dhuftay 2 oo lagu dhuftay cos 60 waxaan ku soo sheegnay inay tahay 0.5 oo square garaysan oo laga jaray 1 sidoo kale waxa intaas ila dhigantaa 2 oo lagu dhuftay hadii 0.5 la square gareeyo waa 0.25 oo laga jaray 1 kadibna hadii 0.25 laba lagu dhufto macnaheedu waa 0.5 oo laga jaray 1 hadii 0.5 hal laga jarana tiradii weyneed maadaama ay gadaal taalo 0.5 ayaa ii soo baxaysa mar kale cos 120 degree waxaan soo ogaaday inay ila dhiganto -0.5 haddaba saddexda process ama kan isticmaal ama kan isticmaal ama kan isticmaal saddexda process ba waa isku process isku jawaab baa soo baxaysa kaliya adiga waxa laga rabaa inaadan khaldin aadan ku gadsoomin cos square theta macnaheedu waa cos xagasha oo la square gareeyay weeyaan taasina waxa filayaa arday inayno isla fahanay haddaba waxaan isla fiirin doonaa hadeerna tanta sidee loo shaqeeyaa iyadoo la isticmaalayo double angle-iskeeda sidee baa loo xisaabiyaa hore waxaynu soo dhiganay tanta double-keedu inay inoola dhiganto sida tan oo double ah tan oo double ah waxa ila dhigantaa baan dhahnay hadaaye 2 tan theta oo loo qaybiyay 1 minus tan square theta hadaba waxaynu ku dabaqaynaa qaacidadaas si kale macnaheedu waxa weeyaan tan 45 laba ku dhufo tan 90 imse inoola dhigantaa marka waxaan leenahay tan oo double ah waxa ila dhigantaa 2 tan theta oo loo qaybiyay 1 minus tan square theta waxay ila dhigantaa tan oo lagu dhuftay 2 oo lagu dhuftay 45 degree waxay ila dhigantaa 2 oo lagu dhuftay tan 45 oo laga jaray 1 minus tan 45 oo square garaysan kadibna tan 45 markii 2 lagu dhufto macnaheedu waa tan 90 degree waxay ila dhigantaa tan 45 waan garanayaa oo waan soo qaybay oo waxay ila dhigantaa hal 2 markii 45 waa 2 oo lagu dhuftay tan 45 waa hal oo loo qaybiyay 1 oo laga jaray tan 45 oo square garaysan macnaheedu tan 45 marka aan xisaabiyana waxa iga soo baxaysa hal baa iga soo baxaysa macnaheedu waxa weeyaan hal oo la square gareeyay hal hadii la square gareeyana macnaheedu waa isla halkii halkaas marka waxaan leeyahay hal oo laga jaray hal hadaba intaasi waxa iga soo baxaysa 2 markii hal lagu dhufto waa 2 hal markii hal laga jarana waa 0 macnaheedu waxaan haystaa tan 90 waxay ila dhigantaa 2 oo loo qaybiyay 0 2 hadii 0 loo qaybiyana waa infinite macnaheedu waxa weeyaan tan 90 waxay ila dhigantaa infinite bay dhigantaa calculator-ka hadii aad geliso tan 90 ku soo saari maayo qiimo macnaheedu waa maxay waa infinite hadaba asxaabi adiga qaab kasta oo lagu weydiiyo qaabkaas baad ugu shaqeynaysaa hadii adiga lagu weydiiyo tan 30 baynu ku xalleynaa fiiri qiimo adiga lagu weydiiyo hadba qiimaha lagu weydiiyo isla qiimaha soo baxaya adiga waxa weeyaan qiimayaasha iska bedbedel qiimayaal ku soo saaro meesha halkaas 30 isticmaal kadibna waxa weeyaan isku day in aad soo saaro tan 60 inta inoo dhiganto calculator-ka marka hore ku xisaabso calculator-kaaga markii aad ku xisaabsato waa inay isku qiimo ay ku soo baxaan hadaba asxaabi casharkeena maantana waxaynu ku ogaanay sida loo isticmaalo costa saddexdeeda qaacidoba hadba taad isticmaasho isku jawaab ku soo bixi doona wadada saxda ah bay ku gaarsiin doontaa sidoo kale waxa aynu isla ogaanay taanta sida loo isticmaalo double-keeda
haddaba asxaabi fiidiyoga ku xigi doona waxa uu noqon doonaa anagoo double angle-iska u isticmaali doona identity anagoo wax ku bedbedelan doona sidoo kale waxaynu fiidiyoga ku xigi ku arki doonaa hadduu ilaahay qadaro example ka waaweyn haddaba asxaabi intaynu ku kulmi doono fiidiyogan kiisa xiga waa anagoo isku duuban oo idin leh isma dhaafno fi amaan illah